بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxay ahayd 4 February maalintaasi oo maalin madowga waxaan maalintaa ka tacsiyadaynayaa ummadda reer Awdal dhibaatadii ka gaadhay 1991kii dilkii cabsigelintii kufsigii ay sameeyeen SNMta iyo taangiyadii Mengistu Haile Mariam ee aan midna naxaynin ayaan dadka ka tacsiyadaynayaa dad badan ayaa 1991kii oo ummadda reer Awdal ku dhibaatoobay magaalada Hargeysa xaafad bay ku lahaayeen ummadda reer Awdal oo isha boorama la oran jiray maanta 1991kii baa ugu dambeysay meel ay martay xaafadda dhan iyo guryaheedii iyo dhulkeedii iyo dadkeedii meel ay mareen lama yaqaan waa la qixiyey wixii la layn karayena waa la laayay wixii baxsan karayena way baxsadeen ummaddii reer Awdal tuulooyinka gabilay dadkii deganaa maanta boorama degan yihiin waa la qixiyey aniga ehelkayga dad abaa ka mid ah magaalada Dila wixii dad lagu laayay waynu ognahay boqolaal baa lagu dilay boorama wixii lagu dilay iyo wixii gaadhayna waynu ognahay ujeeddada dhanina midun bay ahayd Mengistu Haile Mariam iyo dowladdii Itoobiya markaas waxay rabtay ummadda Soomaalida inay kala goyso qabiilka aan ogolayn kala goynta ee Soomaalinimada ku dhagsani waxay ogaayeen inuu yahay qabiilka reer Awdal ee gadabuursiga ah waxa kaliya ee lagu ogolaysiinayaa dhibaatadaasi in la muquuniyo oo marka korka laga qabsado la yidhaahdo annagu waan go'nay waxa intaa dheer oo barnaamijka la socday in la cabsi geliyo la laayo xoolahooda la qaato badaha iyo meelaha ay wax kala soo degayaan loo diido dhulka xataa ay leeyihiin inay degaan laga ilaaliyo lagu dulko oo dhulka laga qaato la wado ilaa inta ay iyagu ama tirtirmayaan ama ay dee soo jeesanayaan ay wax iska celinayaan oo karayaan inay awood la imanayaan waxa weeye 30 iyo dhowrkaa sano waxa weeye wixii annagu maalintii ay soo galeen aan London ka sheegaynay maanta way muuqdaan oo waxa weeye wax reer Awdal iyo kuwa kale ee maxaan ku dhahdaa reer Laascaanood iyo Sanaagba wax ka soo hadhay ma jiro dad wax kasta ogolaaday oo qaatay baa laga dhigay laakiin mid baanay qolada SNMta ku xisaabtamin Mengistu wuxuu ku lahaa waan kala goynaynaa waad go'aysaan xataa waxay garan waayeen inay weydiiyaan war Soomaalida Itoobiya idinla dhaqan maaha idinla waxba maaha maxay u goyi waayeen shirkii lagu qabtay Addis Ababa 1960kii xuduudaha inaan la bedelin baa la saxeexay Soomaaliya oo kaliya diiday intii waddan ee 30 waddan ee meesha joogayba waxay saxeexeen xuduudadii isticmaalka la bedelin Itoobiya waxay ogeydin
waxaasi sharciga adduunku sidaa yahay laakiin dadkan meesha u yimiday ee marka horeba baabi'inta soomaalida la soo hoos galay ee la magansaday been bay u sheegaysay oo waxay lahaayeen Mengistu wuxuu lahaa waad go'i kartaa waxa weeye ma go'aysaan laakiin maxaad dhibaato keenteen inaydan go'in waanu ogeyn dhowr iyo 30 sanaba laakiin maxaad dhibaato keenteen war dadkayagii badihii baad ka xidheen noloshii baad ka xidheen wax lama soo degi karno jideed ma samaysan karno xataa guryaha iyaga hargeysaad ka cashuurtaan mushkiladiinu laakiin maxay tahay waxaa aad xoolo dhacaysaan kuma naaxaysaan maxaad ugu naaxi weydeen xaaraan laguma naaxo 1 2 wixiinu jaad ma dhaafan oo laakiinna ugu sarreeya muqayyad oo qaad banaan intaana Itoobiya gasha waxa weeye mar labaad waxaan idin leeyahay horta ilaahay isku ummad buu inaga dhigay isku af buu inaga dhigay isku diin buu inaga dhigay laakiin kala qol buu inaga dhigay mushkiladda ugu darani waxa weeye sidaad u fikirtaan uma fikirno sida aad dhibta u jeceshiin uma jeclin sida aad dilka ugu soo cararaysaan uguma cararno sida aad dadkayna dulmidaan dad kale oo ajaaniba oo aan diinta islaamka haysan ugu soo kaxaysataan dadkii jinsigiina ahaa idin dhalay annagu ma yeelo laakiin mid kama fursanayso dadku marka dambe qori bay qaadan doonaan maalintay qaataanna dhigi maayaan dhibtaad maanta geysatayna waa lagaa goyn maantada qaar baa boorame iyo meelaha socsocdo jeelasha rasaas ka dul ridridaya ka dul ridi maayaane berri way ku dili doonaan guriga barasaabkay tegeen baa layidhi tegi maayaane nin kasta oo dhulkaa maraya way dili doonaan berri waxaa fiican inta aynaan berri isla gaadhin dadka gadabursiga inaad la fadhiisataan maamulkooda iyo hawlahooda u daysaan dhulkooda dhaaftaan barasaab sidii kii ingiriiska aad hargeysa ka soo cayinteen sidii kii caddaayo boorama joogi jiray dhiisiga ahaan jiray ingiriiska ahaa oo kale aad ku dayanaysaan waayo halkaasaad talkaad ka tilmaan qaadataan halkaa wey halka ay dadka kale diin islaam iyo sharaf iyo wax ka tilmaan qaataan inaad barasaabka ingiriiska noqotaan baad jeceshiin waxaad doontaan jeclaada laakiin xataa ingiriiska laftiisa xagga wanaagsan baa lagaga daydaa isticmaarkii baad kaga dayanaysaan siduu wax u isticmaarayay wax kaloo wanaagsan buu leeyahay kaga dayan maysaan gobol walba wuxuu u ogol yahay inuu tashaday isagu wales iyo scotland iyo irelandba way tashadaan wuu ogol yahay wuuna dhegaystaa cidda hadasho ma xidho hadda ninkii awdal state madaxdii ugu sarraysay nin ka mida weliba ku-xigeenna waad xidhanteen muxuu idinku sameeyey waar hablaha kaxaysan inuu idinku yidhi yaryare magaalada ha ka kaxaynina dee waa runtii muxuu idinku yidhi waar cashuurta dadka u daaya dee waa runtii muxuu idinku yidhi waar waanu isxakumi karnaaye idinku isxakuma haddaad wax xukumaysaan ad caqli leedihiin dee waa runtii muxuu idinku yidhi soomaali baynu wada nahay laakiin annagu gadabursaanahay idinkuna isaaq baa tihin buu idinku yidhi dee waa runtii waxa weeyaan yaynaan ka warwareegin runta war aduu isaaq baa tahay anna gadabursaanahay
isaaqa iyo gadabuursigu 3,000 sannadood bay halkaa joogeen weliba annaga idinka soo horreynay oo dhulka idin dejinnay waa haddaad wax garanaysaan oo taariikh garanaysaan wey annagaa boqortooyadii awda lahayn oo idin dejinnay halkan kama sheegaya maanta laakiin jilib walow idinka idinka midi meeshuu ka yimid waan garanaya way jiraan in maxaan ku dhahdaa odaygii adeerkayaa sheekh isxaaq dhalay yaynaan ku daalintaa kuna dheeraan mayno laakiin annagaa idin dejinnay sababtaan idin dejinnay qaarkiin islaam baad ahaydeen dad islaama oo dagaaladii axmed gurey nala galay de hadda waxa weeye annaga idin dejinnay baad iminka dhulka iyaga nagu dulmaysaan waxa weye mid baan idiin sheegaynaa waxa weeye taariikh xun baad soo marayseen gobolka awdal taariikhdaa xun ee aad soo mariseen bani aadmiga waxa weeye waxaan wax cafinini ilaahay ma jecla waa laydin cafin karaa laakiin waa inaad deg deg u bilowdaan in aad dadkan dhulkooda uga durugtaan bare saabka yare boorama u soo qayilaa tegana aad cishataan inanka yare cashuurta intuu goryo cawl ka qaata hargeysa ku qayilayo intuu sii qaato baca ku soo sii qaatana aad cishataan haddaad intaas samayn weydaan waxaad arkaysaan kuwa iminka rasaasta idin dul marmarinaya berri kuwa idin dilayaad arki doontaan hadday bilaabanto kuwa idin dilaya joogsan mayso isma xakumi karayno oo isma dul fadhigi karayno laba qolo oo weliba annaga idinka taariikh dheer laba qolo oon weliba annagu idinka taariikh dheer nahay wey yaa nahay dee nama xakumi kartaan waxa weeye kolba gaal iyo kolba nin madow iyo kolba cid iyo kolba etoobiyaan iyo waxaasoo dhan haddaad soo kaxaysaan oo annaga aad lagu dulumtaan oo kuwa kale ee walaalihiina jaarkiina ah ee daarood aad ku duluntaan war hadda halkee tegi doontaan wey maydaan isweydiinayn halkaa tegi doontaan dadka kama badnidina soo ma ogidina 5 milyan ee tigreegu 110 milyan oo etoobiyaanay iyo u jilib dhigaysaa waa idinka arkaya war hadda gadabuusi kama badnidina marka ka etoobiya iyo ka jabuuti iyo ku walba la isku daro hadal iyo been idiin baxsatay iyo ingiriiskii oo idiin qorqoray wax mooyaane waxaad ka badantihiin ma jiro kama fiicin idinoo qabyaalad baa dhexdiina idin googoysay taa gadabuursiga iyo soomaaloo dhanna way leedahay annaguna waa idinla qabnaa laakiin dee cudurka waan wada leenahay oo markaa nagama xoog badan kartaan adduunyada dowlada way jiraan iyaguna dana leh waa laydiin soo kaxaysan karaa sidii aad yeesheen wadna waa la yeeli karaa waxaan idin leeyahay taariikhda dib ha ugu noqonina qolada reer awdal baan u sheegaya iyagana mid xabaashanaad ku jirtaan ka soo baxa xabaasha sidii soomaalidu kaleba uga soo baxday uga soo baxa dhib badan oo idin haysataa ma jirto dowlad xoog weyn oo idinka xoog badani ma jirto reera jaarkiina un weeyi oon tirana idinka badnayn tayana idinka fiicnayn taariikhdana aad kaba taariikh horraysan waxaan idin leeyahay yaanay taariikhdaasi hore ee February 4 inaanay dib ugu soo noqonin idinkoo oo aan waxba iska celinayn oo cararaya intaa laydinku yimaado in laydin dilaan sax ma aha nin kasta waxa weeye taariikhdaasi inay idinku soo noqoto maaha idinkoo nooloo dagaalamaya waa inaad dhimataan waana inaydaan joojinin dagaalka waa ninka dagaalka joojiye ayaa laga badiyey
laakiin marka ugu horeysa waa lagu dagi karaa, qolob way ku soo gali kartaa, ciidamo ku riixi karaa, laakiin haddaad joojisid waa lagaa badiyey. tii hore ee aad samaysay joojisay ma anfacayso. waxa weeye waa inaad dadaashaan, waa inaad sidan dadka noqotaan, waa inaad nimankan walaalihiinana jidka iska marisaan, dariiqa iska mariya. soomaaloo dhan dariiqa ismarisay, halkiisaa ku ekaado, dhulkana in la xisaabiyo weeye. wuxuu degayna ha ka noqdo, wuxuu isagu leeyahay waa ku ururo. taas baan idiin sheegaya. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.